أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قدوميها أقل كسره رئيس الوزراء كحجينكا مدحوينها دولة بونتلاند مدحوينها دولة قبلتك جبلان مدحوينها دولة قبلتك قلمدك مدحوينياشي هوري رئيس الوزراء شي هوري حلبانada labada aqal ee baarlamaanka xildhibaanada aqalka wakiilada ee Puntland iyo wasiirada dhammaan ka soo qaybgalayaasha shirka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waxaan ka hadli doonaa laba qaybta hore waa doorashooyinka 2024 iyo doorashada hadda aan taagannahay marka hore waxaan u mahadcelinayaa madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani sida sharafta leh uu noogu soo dhaweeyay magaalada Garowe caasimadda Galmudug caasimadda Puntland magaalada Garowe dowlad goboleedka Puntland waxaan kaloo ugu mahadcelinaynaa martigelinta shirka sanadlaha ah ee madasha aragtida wadaaga sidaasi oo kale waxaan mahad gaar ah u jeedinaynaa agaasimaha macadka Heritage Cabdirashiid Khaliif Xaashi iyo dhammaan mas'uuliyiinta macadka oo nagu marti qaaday madasha aragtida wadaaga sanadlaha ee macadka Heritage iyadoo mowduucyada looga hadlayo madashan ay dhammaan yihiin kuwo muhiim u ah waxaan rabaa in hadalkayga aan ku bilaabo sidee loo macadka Heritage iyadoo mowduucyada looga hadlayo madashan ay dhammaan yihiin kuwo muhiim u ah waxaan rabaa in hadalkayga aan ku bilaabo sidee loo qabtaa doorashooyin hal qof iyo hal cod ah sanadka 2024-2025 taariikh ahaan caalamka muddo dheer bay ku qaadatay in mabda hal qof iyo hal cod doorashooyin la hirgeliyo waxaa xusid mudan bishii Maars 2020 xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka ay u soo gudbisay baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka qabyo qoraalkii sharcigii doorashooyinka qaranka 2021 kaasoo baarlamaanka wax ka bedel ku sameeyay kadibna ansixiyay una saxiixay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa ugu dambeysay sanadkii 1969 oo haatan laga joogo muddo nus qarni ah haddaba si loo helo in sanadka 2025 ay dalka ka qabsoonto doorasho hal qof iyo hal cod ah waxaa lagama maarmaan ah in la helo arrimaha soo socda marka ugu horeysa in la helo nabadgelyo buuxda oo dalka oo dhan taasoo ka faala qaadaysa amniga dhammaan muwaadiniinta inay si xor ah u mari karaan ugana noolaan karaan ugana cod bixin karaan deegaan kasta oo dalka ka mid ah iyagoo codbixiyaal ah ama murashaxiin ah si cabsi la'aan ah in la helo tirakoobka dadweynaha oo sax ah kaasoo asaas u ah qoondaynta tirada kuraasta golaha sharci dejinta Jamhuuriyadda Federaalka marka loo eego deegaanada doorashooyinka ay doorashooyinka ay ka dhacayaan in nidaamka doorashooyinka qaranka ay si qayaxan oo aan mugdi ku jirin uga cad yihiin dastuurka laguna sii faahfaahiyo sharciga doorashooyinka in habraacyada doorashooyinka loo qabanayo ay yihiin kuwo ay isla ogol yihiin dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada xukuumadda Jamhuuriyadda Federaalka maamul goboleedyada iyo axsaabta siyaasadeed yihiinna kuwo aad u faahfaahsan cadaalad
ku salaysan lana fulin karo wakhtigoodana ku dhaca tusaale ahaan in qoondaynta kuraasta ay si cadaaladda ugu salaysan tahay tirakoobka rasmiga ah loo wada siman yahay laga ilaaliyo in lagu saleeyo tirakoob bulshadeed oo midab isir iyo jinsiba ah inay dhisan tahay maxkamaddii dastuuriga ahayd oo go'aan ka gaari lahayd dacwooyinka la xidhiira khilaafaadka ka dhasha doorashooyinka maadaama uu dalkeennu qaatay nidaamka federaalka waa in si cad loo kala asteeyaa xuduudaha u kala dhexeeya dowlad goboleedyada dalka oo dhan islamarkaana la xadeeyaa deegaan doorashooyin walba in la helo howlwadeenno maamuli kara doorashooyinka islamarkaana hela miisaaniyaddii lagu fulin lahaa doorashooyinka in doorashooyinka ay maamulaan guddi doorashooyin oo ka madax bannaan awoodaha dowladda ee sharci dejinta fulinta iyo garsoorka waa inay doorashooyinka ku maamulaan miisaaniyad qaranku leeyahay si ay uga madax bannaanaadaan faragelin oo dhan in heerarka xukuumadeed ee jamhuuriyadda federaalka iyo golayaasha baarlamaanka ee jamhuuriyadda federaalka iyo axsaabta siyaasadeed ay ka dhaxayso wada shaqeyn hufan daacadnimo dareen wadaninimo mar walba danta guud dalka laga hormariya danta gaar ahaaneed inta aan la gaadhin doorashooyinka waa inay xukuumadda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya ay u sii howlgashaa in gobollada waqooyi ee soomaaliya xal waara laga gaaro taasoo dhammaystir u ah geedi socodka dowladnimada si ay u dhacdo doorasho loo dhan yahay inta aan lagu tallaabsan tusmooyinka sare ku xusan in loo howlgalo jawi lagu dhisayo wacyiga bulshada kuna aadan waxtarka ay doorashooyinka tooska ah u leeyihiin dowladnimada iyo horumarinta dalka waa in la sii abuuraa mujtamac ka xorooba musuqmaasuq waxaa xaqiiqa in qodobada dastuurka iyo shuruucda la xidhiirta doorashooyinka qaranka aysan keligoodii kafaala qaadi karin doorashooyin xor iyo xalaala oo hal qof iyo hal cod ku dhaca haddii aysan ka horayn diyaarinta jawiga wacyigelinta aan kor ku soo xusay maadaama qabsoomidda wakhtiyeysan ee doorashooyinka qaranka ay ka mid yihiin asaaska geedi socodka dowladnimada soomaaliya waxaa lagama maarmaan ah in laga gudbo nidaamka doorashooyinka dadban oo ah mid aan dimuqraadi ahayn xasilooni darro siyaasadeed iyo mid amni dhalin kara in loo gudbo nidaamka doorashooyinka hal qof iyo hal cod ah waxay kafaalo qaadaysaa in soomaaliya ay ka mid noqoto dalalka lagu tilmaamo inay ku shaqaynayaan nidaamka dimuqraadiga ah haddiise aan la helin arrimaha aan kor ku soo sheegay way adkaan doontaa in sanadka 2024 ay dalkeena ka qabsoonto doorashooyin toos ah oo hal qof iyo hal cod ah si arrintaasi aan u dhicin waa in dowladda iyo shacabka loo wada istaagaa kamiro dhalinta kaalintaasi waxaan rabaa qodobka kale oo ku saabsan doorashada hadda aan taagannahay sida aad la socotaan 26 bisha December baarlamaanka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ansixiyay heshiiskii dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada bishii September 17keedii ay wada saxiixdeen taariikhdaas laga bilaabo mas'uuliyadda waxaa la wareegay madaxdii magaalada Muqdisho ku kulantay oo heshiiskaasi saxiixday waa la socoteen baarlamaanku wuxuu ka shaqeeyay sharci doorasho oo loogu talagalay in lagu galo 2021 sharcigaasi doorashooyinka qaranka ah badi dadku waxay isku raaceen inayna munaasab ahayn in doorasho lagu geli karo 2021 sababo badan daraadood ee suurtagal ay noqonayso doorasho dadban in la aado sanadka 2021 iyo 2022 haddaba
waxaan rabnaa maskaxdaanada dib inaan ugu noqonno dadka saxiixay heshiiskaasi oo lagu aadayay ama mas'uuliinta saxiixday heshiiskaasi lagu aadayay doorashada 22 ayagaa ka mas'uul ah doorasho inay qabtaan. heshiiska kuma qornayn qodob dhahaya haddii ayaga dhexdooda ay iskhilaafaan meesha loo noqonayo ama waxaa beddel noqonayo kuma qornayn heshiiska. sidaa daraaddeed madaxda hawshaasi dhabarka u ritay ayagaa laga rabaa cidda wax tabanaysa inay qanciyaan, ayagaa laga rabaa inay isu yimaadaan, ayagaa looga fadhiyaa waddankan doorasho inay qabtaan, si degdega u qabtaan. waa la socotaan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka qodobka 47 wuxuu xaq u siinayaa inuu ka mas'uul yahay sharciga doorashooyinka. baarlamaanka hay-adaha dowladda qodobka 69 iyo dastuurka golaha shacabka ee baarlamaanka wuxuu siinayaa in hay-adaha dowladda uu leeyahay awoodda la xisaabtanka iyo korjoogtaynta hay-adaha dowladda ee heer qaran, gaar ahaan dhinaca hubinta dhaqangelinta sharciyada dalka. doorasho sanad 4 sanaba mar inay dhacdo waa sharci. 4 sano doorasho waa inay dhacdaa. waa la socotaan baarlamaanka muddaxileedkiisii wuxuu dhammaanayay 27 bishii December. bishan December aan ku jirno qodob ayaa lagu daray oo ah inuu ilaaliyo firaaqa ilaa baarlamaanka 11aad uu imaanayo. isla markaasna qodobadaasi waxay ka hadlayaan qaar ka mid ah in baarlamaanka awoodihiisii dastuuriga uu leeyahay. sidaas daraaddeed waajibay nagu tahay inaan hubinno dhaqangalka sharciyada dalka oo ah 4 sano walba doorasho inay dhacdo. marka mas'uuliyiinta sharafta leh waxaan u soo jeedinaynaa shacabka Soomaaliyeed idinkaa ku yiri annagaa qabanayna doorasho dadban oo waa la qaban karaa. waxaan idinka rabnaa shacabka Soomaaliyeed doorashay idinka sugayaan, doorashada idinkaa la idinkaga fadhiyaa, ciddii wax tabanaysana inaad qancisaan. waxay la tahay annaga waa ka soo gudubnay dib u heshiisiin dibadda loo aado. waxaan rabnaa instituushanada dowladda inay shaqeeyaan, hay-adaha dowladda haddii ay wax qaldamaan ayaga inay saxaan oo ay wada fadhiistaan. waxaan u baahannahay inaan dib loogu noqonin shirar kale oo keeni kara qalalaase keeni kara ama baahin kara awooddii dowladda lumin kara inaan lagu mashquulin. qof walba mas'uuliyaddii loo dhiibay inuu ka soo baxo. aad iyo aad u mahadsantihiin.